gabar korontada xaafadda u damin jirtay si ay kulan ula qaadato jacaylkeeda. intaan u gudagalin sheekada haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato nagu soo biira mahadsanid. gabar u dhalatay dalka India ayaa la ogaaday in ay damiso korontada xaafadda si ay kulan ula qaadato jacaylkeeda oo qarsoodi ahaa. mar walba oo ay damcaan in ay kulmaan labadan qof ayaa gabadha waxa ay sameyn jirtay in ay damiso korontada xaafadda. dadkii deganaa xaafaddan ayaa waxaa la soo darsay xaalad aysan horey ula kulmi jirin ama horey u dhici jirin, taas oo ah in habeen walba saacado cayiman ay korontada xaafadda ka tagto. maqnaanshaha korontada xaafaddan waxa ay fursad muhiim ah u noqotay tuugada si ay uga faa'iideystaan saacadaha kooban ee korontada ay xaafadda ka maqan tahay. dadka xaafaddan ayaa dacwad u gudbiyay shirkadda, waxayna shirkaddii garan waayeen shaqaalaheeda meesha ay cilada ku jirto. ilaa habeenkii dambe uu noqdo habeenkii uu fashilmay jacaylkii qarsoodiga ahaa ee labadan qof ka dhaxeeyay. gabadha ayaa la ogaaday in ay si ula kac ah u damin jirtay korontada xaafadda marka ay la kulmayso jacaylkeeda oo isagana ka mid ah dadka deegaanka. waxa ay labadan qof qarinayeen xiriirkii jacayl ee ka dhaxeeyay labadooda si aysan u ogaan bulshada deegaankana. waxa ay markasta sameyn jireen habeen walba saacado kooban ay sameyn jireen in ay damiyaan korontada xaafadda marka ay kulmayaan. ma ahan markii ugu horreysay oo sheeko noocan oo kale ah ay ka dhacdo dalka India. sanad ka hor wiil u dhashay dalka India ayaa sidan oo kale waxa uu damin jiray korontada xaafadda si uu kulan qarsoodi ah ula qaato jacaylkiisa oo uu ka qarinayay bulshada deegaankiisa.